رجوا إسراعا واحد أنا قبل أنا كره داهلين وحول يعني وحول باك بحدهم ما أنت دوية ثالو maxaad ka taqaanaa gabadha ugu quruxan galmudug oo rag badan darteeda isku dagaaleen gabadha u qalantay inay tartanka quruxda badan Afrika ku matasho Soomaaliya haddaba daawade intaan u guda galina warbixinta xiisaha badan fadlan shaahda muuqaalkan oo la wadaaga asxaabtaada aniga waxaan ahay gabadha ugu istaalka badan ugu quruxda badan galmudug yani rag walbana yani way soo damcaayaan aniga waxaan ahay gabadha ugu quruxda badan galmudug haddii aad quruxdeeda ka heshay استلكي كهشي وحديلا فيديو هنا لشي شرقريو ayaan garaad xirsi oo ku magac dheer Samaara waa gabadha ugu quruxda badan magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud oo ku suntan xarunta jacaylka iyo quruxda hablaha waxaana Samaara koobka quruxda ku haratay isteelkeeda iyo qaab dhismeedka jirkeeda oo rag badan cajabiyay Samaara oo aan kula kulmay Guriceel waxay ii sheegtay in rag badan ay jacayl iyo xiriir u soo bandhigteen balse ay ka diiday maadaama aysan u qalmin waqtina aysan u haynin sida iyadu ay sheegtay horta qaabka jirkaygu dhisan yahay sidoo kale face aniga فحن بدل مني يعني ناق إنه وين صندرة هاي أفقر حول الحمد لله محي عوا أنا dadku عيدان إنه لكل أنا كل كيجا يعني chance مهاي قصص واي أنا dadku عيدها أركتي ضد الراديو بقول أنا مركب وضم أنا حتى حشود وحسد محي dadkana kaasoo eegaya Samaara ayaa dadka aqoonta u leh ee la dhacay quruxdeeda u arkaan inay tahay gabadha u qalantay inay Soomaaliya ku matasho tartanka quruxda ee Mrs Africa balse aanay ka qayb galin tartankii Muqdisho sidoo kale Samaara waxay sheegtay in marka ay dhaxmarayso bartamaha magaalada Guriceel ragga wata baabuurta ama meheradaha kula laamiga hareerihiisa inay ku mashquulaan quruxdeeda haddaba sidee ay Samaara u aragtaa quruxdeeda maxaysa dadka kala kulantaa siiba ragga waatan iyadoo ka waramaysa arimahaasi oo dhan markaas daamashada dukaanka wax soo qabsan markaan gaari kale ka digmaago rag igu mashquula ama rag gaariyaasha joojina way jiraan iyo rag xataa hooshada ka baaqanayo oo dukaamada fadhiyaxta iska mashquulayo aniga ma aaminsani maanta gabar iga qorxoynay Soomaaliya joogto qorbi joogto waxaan dhihi lahaa dadka qorbaha joogo waqtinimaha waqtina anigu la hadlo yani iga noqdaan dhihi lahaa diswaay aniga shaqooyinkayga iska badan طبعا والله أنا قررت أهانتي ده قفا أوجين قروحي اسمنا أنا قروحي دون سوقي هاي قيمة جن وسوقي ده عدد واحدة دون سوقي الحمد لله دتك كنا يعني وإيش قسم هنا قروح هذا مرة بسبب بدك رجوا إسراعا واحد أنا قبل أنا كره داهلين وحول يعني وحول باك بحدهم ما أنت دوية ثالو رجوا حاجروا أنا جاب أو سن يعبى أو صدق أفر من سجارة ساسة أنا مع إحني أيجا سن تعبى أنا ما ده عبي محي عوا أنا dadku عيدان إنه لكل أنا كل كيجا يعني chance مهاي قصص واي أنا dadku عيدها أركتي ضد الراديو قبل ما يجري أنا ضد حاجة قبل أنا كنت شيء قصة عاية متنا قروح لي متنا حوان أنا قروح لي أنا سوق قرص أمي عاية ما عاية ديك اللي أفكار كدالنا ندي لهاي وحنا مسنا إن قروح لأفريقيا ما أنت أنكب قاعد كرو مركي قلم يقول لك صوت تجو طبعا Soomaaliya dhan marka hadaftan waxaan dhahay waan xanuunsaday alxamdulillah ilaahay baarta ma hadis kale waxa kale tan mana xanuunsanay il bil aadan waaye laakiin hadaftan just wana qaba ragade qaar badan ay kor hadleena jiro laakiin alxamdulillah hadii ilaahay baa ma hadis kale ani hadda marka baxayo hadana adkaar aan akhrisan aniga dhan habeenkii ma sii caqaro qaro aan dareema cabsi badan laakiin anoo adkaarta akhrisan ama quraan akhrisan baaka ma kaday karo quruxdan horta ilaahay baa siiyay wax la iska keenkeen habeeraatay ma ahan justina waan ag taaganahay qof makeup iyo wax marsiya ma ahan kalsoonida isku qabaan faanteen alxamdulillah waxaan ahay gabadha fashion ka maanta ugu shidan galmudug kana aan misanahay gaar ahaan si Guriceel